Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan rabaa inaan ka hadlo anatomy of the pelvic. Anatomy of the pelvic waxa uu ka kooban yahay 3 bones. 3 bones waxay kala yihiin hip bone oo ah 2 hip bones, sacrum and coccyx. Marka sidaad ku haysaan sacrumka wuxuu ka kooban yahay 5 bones fused together. 1 2 3 4 5 لكن coccyx wuxuu ka kooban yahay 4 bones fused together. Here is coccyx 1 2 3 and 4. Here is the coccyx. Okay. Number 1 waxaan rabnay wuxuu ka kooban yahay 2 hip bones. lafta labaad waxa waaye sacrum. saddexaad waxay noqonaysaa coccyx. Okay. Marka hal ayaa ugu doonaa insha Allah. This is the hip bone, and the hip bone qaybihiisa kala duwan ayaan sheegi doonaa. Hip bone waxay ka kooban tahay 3 qayb oo aad u muhiimsan. 3 qaybood ee aad u muhiimsan waxay kala yihiin qaybtan cagaarka ah ee ugu sareyso hip bone-ka ee ku dhamaato godkan oo loo yaqaan acetabular ee ku dhamaato godkan intaan waxaa loo yaqaanaa ilium. This is the ilium. meeshaan cagaarkana u jeedaan intaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa ilium. Okay. Ilium. This meeshaan aad u jeedaan ee buluugga ah ee ka soo bilaabato acetabulum. Okay, this qaybtan buluugga ah aad u jeedana waxaa loo yaqaanaa pubis. Okay, qaybtan aad u jeedaan ee cagaarka ahna waxaa loo yaqaanaa ischium. Okay, ilium, pubis, ischium. qaybta kore ilium, labada hoosena waa ischium and pubis iyo ischium. Okay, marka waxaan ka bilaabaynaa ilium asigoo faahfaahsan. Ilium waxaa u kala qaybinaynaa qaybo muhiim ah. wareegga oo iliumka ay leedahay waxaa loo yaqaanaa iliac crest. This wareeggan aad u jeedo ee soo taagan waxaa loo yaqaanaa iliac crest. Iliac crest. Okay, wuxuu kaloo leeyahay 3 spine. 3 spine, hal anterior oo soo jira, labana waxay jiraan posterior. hal anterior oo soo jira. This is the spine. Okay, intan spine aa jiro, hoosna spine. Okay, hal spine oo anterior soo jiro iyo laba spine oo gadaal jirto. Okay, spine-kan oo hore soo jiro waxaa loo yaqaanaa anterior iliac spine. Okay, this spine waxaa loo yaqaanaa anterior iliac spine. Okay, this labadan gadaal jirto maadaama gadaal ay jiraan waa inay qaataan posterior. Posterior iliac spine waa laakiin midna koroo jira midna hoosoo jira. midka kor jiro waxaa loo yaqaanaa posterior superior kor ayuu jiraa iliac spine. Posterior superior iliac spine. hoos maxaa jiro gadaal loo jira hoos loo jira soomaa. marka waxaa leenahay posterior inferior iliac spine. Okay, marka ilium waxaa ugu muhiimsan god. godkaas oo dhaxdan ku yaalo
waxaa loo yaqaanaa godkan oo dhexda ku yaal waxaa loo yaqaanaa iliac fossa. Iliac fossa. Okay. Godkan oo dhexda ku yaal waxaa loo yaqaanaa iliac fossa. waxaan soo haraa marka pubis iyo ischium. waxaan ka hadlaynaa hadda si toos waxaa u hadli doonaa insha allahu tacaala the pubis. Okay. Pubis waxaa kala qabanaa qaybo muhiim ah. Okay. qaybta ugu weyn ay leedahay pubis waxaa u bixinaynaa body. Okay. This is the body of the pubis. This aad u jeedaan waa rami. marka wuxuu leeyahay pubis wuxuu leeyahay two rami. midkan waa rami, midkan waa rami. ramiga kore iyo ramiga hoose. marka ramiga kore waxaa leenahay superior ramus. superior ramus. kan waa hoose waxaa leenahay inferior ramus. Okay. marka superior ramus wuxuu leeyahay tubercle. This is a tubercle. Okay. This tubercle macnaha waxaa waaye pubis tubercle. Pubis tubercle marka labada pubis marka isku tagaan waxay sameynayaan carjaw ayaa isku keenta. carjawdan isku keenta waxaa loo yaqaanaa symphysis pubis. symphysis pubis. Okay. marka waxaad ogaataan all 3 points xagee ku kulmaan. waxay ku kulmaan in the acetabulum. iliac waxay ku dhamaataa acetabulum. body asigana acetabulum. ischium asigana wuxuu kasoo gaadaa acetabulum. marka waxaa ogaataa inferior ramuska ay leedahay pubiska iyo ischiumka inay isqabsanayaan. Okay. meeshaan ay iska galaan. This is very important. Okay. marka pelvica as anatomical waxaa ugu muhiimsan inuu leeyahay pelvic inlet iyo pelvic outlet. Okay. qaybta kor xigto ee ugu weyn oo dhibcahan aan ku sameeyay oo iliumka xigto waa pelvic inlet. Okay. qaybta kalena pelvic outlet. Okay. waxaan ka hadli doonaa marka ischium. This cagaarkan waa ischium. ischium wuxuu leeyahay body. This is the ischium oo leh body. Okay. ischium waxay leedahay qaybtan hoose waa tuberosity. Okay. ischium tuberosity. iyo qaybtan kale oo loo yaqaano ischial spine. ischial spine waa muhiim. ischial spine. ischial spine waxay muhiim u tahay dumarka markay dhalayaan. macnaha dumarka balfikooda yar ama balfikooda weyn markay laga hadlaayo waxay ku xiran tahay ischial spine. sababtoo ischial spine haddii gudaha aad u soo dhigo hadhow macnaha cunuga meesha ma soo mari karaayo. Okay. This is the anatomy of the pelvic. And now we will move on the anatomy, follow up the anatomy, and then to the blood vessels and the nerves. That's it out today. Manta ashaka inta sayusmiha and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan rabaa inaan sii wado qaybteeni pelvic anatomy-ga. hadda waxaan ka hadli rabaa insha Allah blood vessels of the pelvic artery. Okay. in the pelvic artery waxaan kasoo bilaabi doonaa insha Allah tacaala abdominal aorta labada branch oo isku qaybay oo ah common iliac arteries. and that common iliac arteries ayaa waxaa kala qaybay doonaa oo muhiim ah external iliac artery iyo internal iliac artery. marka pelvic ka hadlayna waxaa aad loogu muhiimsan
internal iliac artery. Okay, internal iliac artery حقو كيمي ماشي كيمي أي حد كبلاوته ما شاء الله. كم سوقات كانوا abdominal aorta. This abdominal aorta. This abdominal aorta وحسوق الكبدونا right and left common iliac arteries. Common iliac artery. Okay, right and this is right and this is left. waxaan si ka hadli doonaa qayb right tan ka hadlo waxay ka tahay qaybta left inaan ka hadlay. marka right common iliac artery wuxuu isku qaybin doonaa internal iliac artery iyo external iliac artery. Okay, this is how I external iliac artery. This is now how I internal iliac artery. Okay, external iliac artery مقوسيس على الحوصين كنتونا femoral artery. Femoral artery supply lower limb. مكانه حالة بسيط in the pelvic مكانها لأن organs or pelvic mostly supplied by internal iliac artery. marka internal iliac artery ayaa waxa uu qaybin doonaa laba qaybood oo muhiim ah. labada qaybood maxay kala yihiin? hal waa anterior division hore ayuu soo xigaa, midka kale waxa ka dhigayaa blue sababtoo ah wuxuu xigaa gadaal. marka waxaan leenahay anterior division iyo posterior division ay isku qaybin doonaan. Okay, posterior division saddex branch ayaa ugu muhiimsan, laakiin anterior division aad ayuu branch badan yahay. hadda waxaa ku hormari doonaa posterior division maadaama saddex qaybood ay u muhiimsan tahay. saddexda division ee posterior division ee kala bixiso maxaa ka mid ah? Okay, posterior division waxaa isku qaybin doonaa iliolumbar artery iyo lateral sacral artery iyo superior gluteal artery. Okay, that's the most divisions of the posterior division of the internal iliac arteries. Okay, now we will move on the anterior division. Anterior division, branchiga ugu horeeya oo anterior division waxaa loo yaqaanaa umbilical artery. This is the umbilical artery. Okay, and umbilical artery wuxuu sii doonaa branchi oo loo yaqaano superior vesical artery. Okay, this is the superior vesical artery, and this superior vesical artery will supply brain donor bladder, and bladder will come into high internal organs of the pelvic. Okay. وحوص يصير صعدة إن شاء الله وحوص ينقون دونا obturator artery, and that obturator artery, this is the obturator artery. Okay, internal iliac artery وحوص يصعد دونا وحوص ينقون دونا inferior vesical artery. Okay, in male حيث معناها artery كان محاولة مقعوة inferior vesical artery، لكن female مركز هاي artery كان مقعوة يسكت كده صوته حبنا ترى قول مقولتميها. That's why أو female كان ونقول تونتو vaginal artery. Vaginal artery. Inferior vesical artery in male, vaginal artery in female, and that will supply the vagina. Okay. And branchi kala ayaa ka soo bixi doono oo loo yaqaano
different artery. Okay, this is the different artery in male M male, but in female artery-gan magaca uu iska bedeli doonaa wuxuu noqon doonaa magaciisa uterine artery. And uterine artery wuxuu muhiim u yahay ama u supply gareeyaa uteruska. Okay, this is the uterine artery. Different artery, then waxaa soo bixi doono middle rectal artery. Okay, this is the middle rectal artery. Middle rectal artery kadib waxaa soo bixi doono artery loo yaqaano asigana inferior rectal artery. This is the inferior rectal artery. Okay, marka inferior rectal artery markay soo baxay kadib kor waxaa branching waxaa ka bixi doono oo loo yaqaano inferior gluteal artery. Inferior gluteal artery. Marka this is superior gluteal artery. This is the superior gluteal artery, and this is the inferior gluteal artery. Okay, marka superior gluteal artery wuxuu ka yimaaday posterior division of the internal iliac artery, like inferior gluteal artery wuxuu ka yimid anterior division of the internal iliac artery. That's the internal division of the internal. Okay, kadib wuxuu noqon doonaa terminal branch. Terminal branch-ga uu leeyahay anterior division of the internal iliac artery waxaa loo yaqaanaa internal pudendal artery. This waxa waaye internal pudendal artery. Okay, internal pudendal artery. Okay, internal pudendal artery dhankan wuxuu isii doonaa branch-gaas waxaa loo yaqaanaa perineal artery. Okay, perineal artery. Okay, this is the perineal artery. Okay, perineal artery wuxuu bixin doonaa branch. Okay, branch-gaas wuxuu noqon doonaa posterior labial artery in female. In male na wuxuu noqon doonaa posterior scrotal artery. Okay, female ayaan ka bilowna. In male branch-gan waxaa ku magacaabeynaa posterior scrotal artery. In female waxaa leenahay meesha scrotal ka bedelayna bas waxay noqonaysaa posterior labial artery. And this posterior scrotal artery will supply the scrotum, and this labial artery will supply the labia majora and the labia minora in female. Okay, that's exception. Okay, and branchigii soo u socdo wuxuu bixi doonaa branches kala muhiim ah. Okay, brancheska wuxuu ka qaybinaa laba D meesha ku dhamaado laba D. D-da koowaad waxaa leenahay deep artery. D-da labaad waxaa leenahay dorsal artery. Okay, deep artery in male markaan joogno artery-gan waxaa leenahay M. waxaa leenahay deep artery of the penis. Okay, laakiin female markaan joogno wuxuu noqonayaa deep artery
of the glottis. Okay, this dorsal artery in male, dorsal artery of the penis. In female, dorsal artery of the glottis. Okay, that's it. Wow. All the blood supply of the pelvis. Okay, this is very important. Thank you.